ku soo dhawaada dalka ay ku yaalaan ahraamta ugu badan caalamka. Kani waa muuqaal ku saabsan dalka ay labada webi ee Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ahi ay ku kulmaan. Suudaan waa dal weyn oo dhaca bariga Afrika, kaasi oo hodan ku ah dahab, biyo iyo dhul beereed baaxad leh. Laakiin maanta waa mid ka mid ah dalalka ugu khatarsan Afrika, waxaana ka dhacaya dagaal sokeeye. Suudaan mar bay ahayd mid ka mid ah wadamada ugu horreeya Afrika ee helay xornimo, mid ka mid ah dalalka leh sumcadda dagaalada ka dhanka ah gumaysiga, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhanka waxbarashada. Maantase waa dal burbur siyaasadeed iyo dagaal sokeeye uu ka jiro. Sidee buu dalkan ugu dhacay fowdo iyo burbur? Maxaa ka dhigaya Suudaan meel ay adduunyadu indhaha ku hayso? Muuqaalkani waxaa ku ogaan doontaa xogo ku saabsan Suudaan oo ah dal aan la iska indhatiri karin ka warramidiisa xaqiiqdii. Suudaan juqraafi ahaan waxay dhacdaa bariga Afrika, waana dalka saddexaad ee ugu weyn cabir ahaan qaaradda. Inkastoo uu dalkan lumiyey Koonfur Suudaan sanadkii 2011, waxaa kale oo uu lumiyey ahaanshihiisa dalka ugu weyn qaaradda Afrika, waxaana booskaasi hadda ku jira Algeria. Waxaana kaalinta labaad ee dalka ugu weyn cabir ahaan ee qaaradda ku jira Koongada Dimuqraadiga ah. Dalkan wuxuu xuduud la leeyahay dalal badan sida Masar, Eritrea iyo Itoobiya, Suudaanta Koonfureed, Chad iyo Central African Republic iyo Badda Cas. Dalkan wuxuu ku leeyahay marin-biyoodka Badda Cas dekedda istiraatiijiga ah ee Port Sudan. Dekedda Port Sudan waxay ka dhigaysaa Suudaan meel muhiim u ah ganacsiga gobolka. Sidoo kale webiga Niil ayaa dhex mara dalkan, kaasoo ka dhigaya Suudaan mid ka mid ah dalalka ugu biyaha badan qaaradda Afrika. Caasimadda dalkan waa magaalada Khartoum, halkaasi oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee reer Suudaan. Khartoum waxay caan ku tahay saddex-xagalka webiga Niil, ama waxaa loo yaqaano barkulanka labada webi, Niilka Cad iyo Niilka Buluugga. Waxaana halkaasi ka samaysma webiga weyn ee Niil ee aada Masar. Magaaladan waxay u qaybsantaa saddexda qaybood ee saddexagalka ah: Khartuumta qadiimiga ah, Durmaan iyo Bahri. Intaa waxaa dheer, Khartuum waxay leedahay taariikh dheer oo ku saabsan halgankii Mahdiyiinta, taasi oo ka dhigaysa meel muhiim u ah taariikhda iyo dhaqanka Suudaan. Magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkani waxaa ka mid ah Port Sudan, Kassala, Al Abyad iyo Donggala. Sooyaal ahaan, Suudaan waxay leedahay taariikh dheer oo Islaami ah, waxayna xiriir la lahayd dowladihii Muslimiinta ee xoogganaa, sidii dowladdii Mamaaligta iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Waxaana dalka Suudaan gudihiisa ka dhashay saldanado Islaami ah sida saldanadii Funj, taasi oo ka talinaysay bartamaha Suudaan laga bilaabo sanadkii 1504 ilaa 1821. Waxaana xukunka ka tuuray saldanadaas reer Suudaan ciidankii Maxamed Cali Baasha oo ahaa hogaamiyihii Cusmaaniyiinta ee Masar. Waxaa kaloo ka soo dhashay galbeedka dalkan saldanadii Islaamiga ahayd ee Darfuur laga soo bilaabo sanadkii 1600 miilaadiga ilaa 1916. Darfuur waxay ahayd saldanad madax bannaan ilaa ay Ingiriiska xoog ku jabiyeen intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka, sababo la xiriira taageeradooda khilaafada Cusmaaniyiinta. Waxaa kaloo dalkani ka dhashay dhaqdhaqaaqa caanka ahaa ee Mahdiga, kaasi oo uu hogaaminayay Maxamed Axmed al-Mahdi 1881, waxayna xukunka kala wareegeen si kacdooni ah nidaamkii ka socday xukunkii isdahaarnaa ee Masaarida iyo Cusmaaniyiinta, balse sida rasmiga ah uu Ingiriiska gacanta ugu hayay. Ayna ciidamada Mahdiga jabiyeen ciidankii Masaarida ilaa ugu dambeyn ay ku dileen gudaha magaalada Khartoum sargaalkii caanka ahaa ee gumaysiga Ingiriiska, Major General Charles Gordon. Balse Mahdiga ayaa dhintay 6 bil kadib qabsashada magaalada Khartoum. Nidaamkii Mahdiga oo ahaa nidaam Islaami ah oo ku salaysnaa shareecada ayaa inta badan ka talinayay dhulka reer Suudaan muddo 13 sano ah. Hase yeeshee, dhaqaalaha burburay, go'doon iyo macluul ayay la kulmeen, iyadoo aanay haysan xirfado iyo awood dhismeed oo lagu soo celiyo nolosha shacabka, maadaama aysan aqoonsi haysan, go'doonna la geliyey. Ugu dambeynna Ingiriiska iyo Masaaridu waxay dib ugu soo duuleen Suudaan, waxayna meesha ka saareen xukunkii Mahdiyiinta. Sanadkii 1899, kadib guuldaradii dowladda Mahdiga ka soo gaartay gumaysiga Ingiriiska iyo maamulkii Masaarida ee isla socday, Suudaan waxay gashay xukunka gumaystaha Ingiriiska si dhammaystiran, iyo Masaaridii la socotay. Waxay noqotay waxay ugu yeeri jireen British Egyptian Condominium, taasoo macnaheedu yahay in Britain iyo Masar si wadajir ah u maamulayeen Suudaan. Dalkan wuxuu helay xornimadiisa 1956, isagoo noqday mid ka mid ah dalalkii ugu horreeyay ee Afrikaana ee xorooba. Laakiin nasiib darro, Suudaan waxay gashay dagaallo sokeeye oo dheer, waxaana dalkaasi ka dhacay 2 dagaal oo sokeeye oo u dhexeeyay
koonfurta iyo waqooyiga. Sanadkii 1955 ilaa iyo 1972 iyo mid kale oo dhacay sanadkii 1883 ilaa iyo 2005 kaasi oo sababay ugu dambeyntii heshiisyadii koonfurta Suudaan dalku noqotay. Sidoo kale dalkani waxaa ka dhacay dagaalkii Darfur halkaasi oo la wariyo inay ka dhaceen falal ka baxsan insaaniyadda, waxaana la soo wariyay inay ku dhinteen dad ka badan 300,000 oo qof, waxaana loo adeegsaday maleeshiyaad ka baxsan dowladda sida maleeshiyaadka Janjawiidka. Sanadkii 2011 koonfur Suudaan ayaa dooratay inay ka go'do dalkan iyadoo noqotay dal madax bannaan. Hase yeeshee halkii nabad la heli lahaa, Suudaan waxa ay sii gashay qalalaase siyaasadeed iyo dagaal kale. Dagaalkii ugu dambeeyay ee dalkani wuxuu qarxay sanadkii 2023 wuxuuna ka dhex qarxay militariga dalka uu hogaamiyo Generaal Abdel al-Burhan iyo ciidanka RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagalo ama Ximiti. Dagaalkan ayaa sababay xaalad bani'aadanimo oo aad u daran iyo in ka badan 10 milyan oo qof inay barakacaan, kumanaan kalena waa la dilay. Bulshooyinka iyo qowmiyadaha dalkan Suudaan waxaa ku nool in ka badan 50 milyan oo qof, kuwaasi oo ka kooban qowmiyado badan sida Carab Suudaani ah ama dadka ka soo farcamay isguursiga Carabta iyo dadka deegaanka muddo qarniyo ah kuna hadla afka Carabiga ayaa ah kuwa ugu badan bulsho ahaan. Sidoo kalena waxaa jira qowmiyado dadka deegaanka ah ama asal Afrikaan ah sida Fur oo ah qowmiyadda degta galbeedka dalka gaar ahaan Darfur kuna hadasha luqadda Fur. Waxaa kaloo jira Nuba taasi oo ah qowmiyado iyaguna dega buuraha Nuba. Waxaa kaloo jira qowmiyado yaryar sida Beja iyo qowmiyadaha Nubiyaanka. In ka badan 95% dadka reer Suudaan waa muslimiin Sunni ah. Luqadaha rasmiga ah ee dalkan waa Carabi iyo Ingiriis, laakiin waxaa sidoo kale dalkan lagaga hadlaa luqado badan oo dadka deegaanka ah. Dalkan wuxuu kaloo leeyahay ahraamta ugu badan ee caalamka oo qiyaastii la soo wariyo inay yihiin in u dhaxaysa 200 ilaa iyo 250 ahraam, kuwaasi oo badankood la dhisay xilligii boqortooyadii Kuush. Waa ahraam ka badan inta ku taalla Masar oo ah 118 ahraam, balse kuwa Masar ayaa ah kuwa caan ah sababo la xiriira inay ku yaalaan ahraam waaweyn sida ahramka Giza. Khayraadka dabiiciga ah ee dalkan Suudaan waa dal si dabiici ah hodan ugu ah dahab aad u badan, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan dahabka Afrika, waana meesha ay ka aloosan tahay colaadaha socda ee dalkan, taasi oo lagu eedeynayo kooxaha Janjawiidka in si aan dowli ahayn ay uga macaashaan dahabka dalkaas. Dalkan waxaa kale uu ku tiirsan yahay beeraha, halkaasi oo Suudaan leedahay dhul beereed baaxad leh oo ku teedsan webiyada Niilka Cad iyo kan buluugga ah. laakiin khayraadkan beereed looma adeegsan si waxtar leh sababtu waa musuqmaasuq, colaado iyo maamul xumo. Shirkado shisheeye oo ka socda Shiinaha, Imaaraadka Carabta iyo Ruushka ayaa hungureeya dahabka reer Suudaan weliba si sharci darro ah si ay ugu helaan macaash hoose iyadoo aysan shacabku ka faa'iideysan. Nidaamka siyaasadeed iyo khilaafaadka ee dalkan Suudaan waxaa muddo dheer ka jiray xukun militari ah, waxaana sidoo kale ka dhacay 4 afgembi oo militari. Sanadkii 1989 Cumar al-Bashir ayaa afgembi kula wareegay xukunka, wuxuuna xukumayay in ka badan 30 sano. 2019 waxaa talada Cumar al-Bashir ka tuuray militariga kadib kacdoonno dadweyne oo dalkaasi ka dhacay iyadoo shacabku ay codsadeen dowlad rayid ah. Laakiin 2021 militariga ayaa mar kale afgembi sameeyay, waxayna meesha ka saareen xukunkii rayidka ahaa. 2023 dagaal sokeeye ayaa ka qarxay dalkaas una dhaxeeyay militariga SAF iyo ciidanka gaarka ah ee RSF ama Janjawiidka, taasi oo sababtay burbur iyo barakac ballaaran. Waxaa socda dadaalo caalami ah si loo joojiyo dagaalka, balse xaaladdu weli waa mid aad u khatar badan sababo la xiriira faragelinta shisheeye ee dagaalka, gaar ahaan dalka Imaaraadka Carabta oo lagu eedeynayo inuu taageero kooxaha Janjawiidka, iyadoo Suudaan ay 2 jeer soo eedeysay dalkaas horna keentay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dhaqaalaha iyo fursadaha. Suudaan waxay ku tiirsan tahay dhoofinta dahabka, beeralayda yaryar, tikada Port Sudan, laakiin shaqo la'aanta, sicir bararka iyo caqabadaha ganacsi ayaa dhaawacay dhaqaalaha dalkan. Haddii ay nabad iyo xasilooni timaado, Suudaan waxay yeelan kartaa dhaqaale xoog leh oo ka yimaada dhulka beereedka baaxadda leh, macdanta iyo dahabka, iyo inay yimaadaan fursado ganacsi iyo maalgashiyo. Suudaan waa dal leh fursado aan dhammaan, waa dal ay ku filan yihiin khayraadka dabiiciga ah ee Alla ku manaystay, waa dal dhalinyaro badan kuna yaal goob muhiim ah. Laakiin haddii aysan nabad noqon, dhammaan fursadahaasi waxay noqonayaan
noqonayaan wax aan la gaarayn. Suudaan waxay mudan tahay in la badbaadiyo ma aha keliya masiirka dadka reer Suudaan ee waa masiir gobolka oo dhan iyo qaaradda. Suudaan waa cashir muuqda oo Afrika ka mid ah. Khayraad keliya ahi ma badbaadiyo dal haddii aysan nabad iyo cadaalad jirin.